السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعانو وناكسن مدن يالي مروين ميل والبا جوكتان أدنا قد يسانيسان أما نقدا ونيسان وانيقو عبد كرينا عاو وحان هالكن يدين كوكسو قد بندونا تارتن عيارات اي سوا بابولين جروب كان لو يغانو أفرو كندا oo in badan magaalada Toronto caruurta yaryar ku tababarayay dhanka kubadda cagta ciyaarahan ay idin soo qabanqaabiyeen Afro Canada oo laga furay magaalada Toronto maanta oo Jimco ah bishana tahay January 20, 2017 ayaa waxaad moodaa inay ka soo qayb galeen ciyaartoydii hore ee barasamaadka qaar ka mid ah iyo qaar guddiga u xilqaabsan ciyaarahan inay xil dooraan inuu si nidaam leh ku socdo bal haatan aan daawano barnaamijka ay idin soo bandhigeen Afro Canada iyo caruurta ku nool magaalada Toronto ee Soomaalida ah. Okay, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waa bilaabayna waxaan ku bilaabaynaa aayadaha Quraanka oo noo akhri doona Ahmed si ciyaarta aan u fududeyn insha Allah after Quraan aan wax dhan ka hadlaynaa. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق إنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم إنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا سلى أرأيت إن كان على هدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم أن الله يرى كلا لم ينتهى لنسفعا بالنازية نازيات كاذبات قاضية فليدعو نادية سندعو زبانية كلا لا تدح واسجر واقترب. ما شاء الله ما شاء الله. أحمد قرآنك وناغري إلهي نجا أقبله. هذا لو حنكسو دوينا الشيخ بشير شيل أجوجو ومعنا مساجد خالد مبيد وحيره وعد إنه آخردون إن شاء الله سفع عنها لو لقيت. السلام عليكم. إيه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلهي بما هدسكله سبحانه وتعالى إسيمات كان أن يسير نمت إيه برنامج كان عرورة الله قبتي ووحوين وهانو قرن إن korinta iyo barbaarinta caruurta inaysan ahayn oo keliya jirkooda oo la barbaariyo la koriyo laakiin waxa ka muhiimsan aqligooda oo la koriyo la barbaariyo aqliga kubcintiisa iyo barbaarintiisuna waa ilmaha waxa loo sheego waxa lagu tarbiyeeyo iyo sida loola dhaqmo sida jirka kubcintiisu ay u tahay waxsiin nafaqayn dawo u helis iyo wixii la mid ah sida darteeda ayaa diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala in badan waxay nagala hadashaa sidaanu cuquusheenna u kobcin lahayn sidaanu aqliyadeena u weyneyn lahayn sida darteeda waxaan arkaynaa in badan Alle subhanahu wa ta'ala inuu leeyahay la'allakum tatafakkaruun waxaad mudantiin inaad fikirtaan aqligiina dib aad waxaan u raadisaan waxaan arkaynaa Alle subhanahu wa ta'ala inuu oranayo liqawmin ya'lamuun waxay waana u tahay qoom wax garanaya wax garashaduna waa aqliga weeyaan waa maanka iyo maskaxda qofka weeyaan
cayaaraha la isugu yimid marka waxay qayb ka yihiin kobcinta iyo barbaarinta caqliga awlaadda iyo carruurta dhanka kalena waxay u tahay kobcin iyo barbaarin jasadkoodii waxay u tahay wax u sheegis maxaa yeelay ilmuhu markuu meesha yimaado ee awaamir la siiyo ee wuxuu samayn lahaa iyo wuxuunan samayn lahayn intaba loo tilmaamo salaaddii ay tukadaan oo jamaaco ku tukadaan waxay u tahay waxbarashay u tahay wuxuu ogaanayaa salaadda inaan marna looga tegi karaynin haddii guri la joogo iyo haddii cayaar la joogo waa kobcin weeyaan waa barbaarin weeyaan sidaa darteeda marka waxaa muhim ah in aynu ku dadaalno awlaaddeenna sidaynu wax ugu sheegi lahayn maxaa yeelay ilmaha oo loola hadla sidii qof weyn caqligooday kobcisaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu ina baray maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu arkay wiil yar oo anas ibnu maalig la dhashay oo la odhan jiray abu cumayr ayuu maalin isagoo aad u walwalsan si uu marka oola sheergareeyay nebiga calayhi salatu wasalaam oola wadaago xanuunka iyo qofka dhallinyarada ah ee carruurta yar ah haysata ayuu wuxuu ku odhanayay yaa abaa cumayr maa facala nuqayr shimbir uu lahaa uu ku cayaarayey baa ka dhintay markaasuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam abu cumayrow muxuu sameeyey shimbirkaagii nuqayr ahaa culimmadu waxay yidhaahdaan xadiidka keliya waxaa laga qaadanayaa ilaa 40 faa'iido carruurta marka in loola hadlo sidii qofka weyn oo loola sheekaysto caqligooday kobcisaa markay dad weyn la joogaan sidan oo kale caqligooda waa weynaanayaa qof weyn bay isu arkayaan laakiin marka ay iyaga oo kale iyo wax ka sii hooseeya la joogaan caqligooda weligii ma korayo ma kobcayo sidaa darteeda marka meelahan aad isugu imanaysaan iyo carruurta oo la isu wada keenaa waxay qayb weyn ka tahay maskaxdooda iyo maankooda oo la dhiso waxgaradkooda iyo fahamkooda kor loo qaado adeecista waalidkooda iyo dhaganugulaanshaha waalidkooda ayay qayb ka tahay mujtamaca iyo ummadda siday u dhexgeli lahaayeen bay qayb ka tahay ummadda soomaaliyeed hadday yihiinna iyagu siday isu fahmi lahaayeen bay qayb ka tahay insha allah ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan oga baryaynaa walaalihii soo abaabulay runtii intaasoo awlaad oo la isu keenaa wax sahlan maaha juhdi bay ku timid dadaal bay ku timid karti bay ku timid gurigii oo laga soo tagay carruurtaadii ood ka soo tagtay bay ku timid ilaahay subxaana wa tacaala inuu barakeeyo awlaadda barakeeyo waalidiintooda barakeeyo walaalaha meesha soo abaabulayna ilaahay subxaana wa tacaala iyaga awlaaddooda iyo reerkoodaba inuu u xifdiyo وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. الله نو أنفع إذا قرآن كنا أقري الشيخ بشير شيل وأنا كماتين هاي. هذا نحن كسور جينا قيبت عيارهم كوريجنا ما دام معاو هالكان سكوجي مدين أفرو كنديان أو سكوبه بكوهان أو جدين مقدشة ورسد سمكي أو تبا هلا أو رنتي كوه كسب مركي ويرتا بقول عيال. marka waxaan leeyahay waalidiinta ka soo qayb gashay iyo dadkii wax ilmahan taray aad u mahadsantiin sida sharafta la ugu soo qayb gasheen caawa waan ku mahadsantiin markastana waan la garab taagantiin waxa kale oo jooga caawa oo ciyaaraha sanadkan qaybtan dhacaysa oo caawa gudoomiye ka ah Cabdi oo ah macnaha ciyaartoyda hore ee Soomaaliya ee basketballka Cabdi oo sanadkan asigu ah gudoomiyaha u sharaxan inuu macnaha ilmahan hogaamiyo asigii Bashiir iyo groupka kale oo maqan waxa kale oo jooga laacibka weynaa ee Soomaaliya qaranka Soomaaliyeed haddana ah gudoomiyaha macnaha odayaasha America North America oo Canada markii la isku diray Dr. Yusuf Shaqaq oo nidii doona laba kale Yusuf kusoo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad ay u mahadsantahay xarbi soo dhaweynta ay ugu soo dhaweysay ciyaarahan oo ay qabaqaabiyeen Afro Canadian marka anna waxa idinkaga soo qayb gali karaa insha Allah taala hadduu Ilaahay yiraahdo every night a game qabtaan we will support you imaanaya waan idin taageersanahay insha Allah ilmaana dhiirigelin ay u noqon doontaa imaatinka imaanayna meelahan anagoo dadka waaweyn oo hore ah marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa maasinta Dictor waxa u maleynaa waqtigeena waa gabagabo Cabdi waxa u maleynaa okay waxaan ku wareejinaa gudoomiyaha Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, guys. This tournament is just for the kids for 10 years and 18, from 10 to 18.
and there is a big rules. There's a lot of rules. We hope that you just play fairly, and we need you. I'm talking about the kids, the children. You have to play fair. You have to play a friendly game. You learn each other, and that's what we are looking for. That's why we are just raising you and just teaching you for the sports. We call it. I thank for the teachers. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا برنامج ترتن عيارات وكبد عكتها سوق بنقابيين أفرو كنديان وككوبان معلمين بدن وصوماليات وسكودة إن ما هي ركاي وحقبتان هاتن سوحي للجوجو عبد الرشيد بكين وأسيقنا قدومي كحجين كصومالي ميني فوتبول وحن ربع عبد الرشيد in aan ka ogaado ugu horeyntii maadaama taareer Toronto aan u jeedid waxqabadka hadda loo qabanayo ciyaartooyda Soomaaliyeed khaasatan ururkan Afro Canadian oo barbaarinaya caruurta sidee u aragtaa waxa ay qabanayaan run ahaantii maadaama ta qof ciyaartii ku dhex jiri jiray horun u soo ciyaari jiray kubadda cagta runtii waa ku salaamaya Cabdikariin Jabbo aad baan ku salaamayaa website-kaaga Bakara B runtii waan ku leeyahay aad baan ku soo dhaweynayaa runtii waxay caawaan aragnay indheena ku aragnay wax aad iyo aad u qiimo badan aan la heli karin waaye runtiina waxaan aad ugu mahadcelinayaa ururkan shantan kooxood oo isku tagay oo la baxay magaca Somali African Canadian la baxay runtii waa waxaan ku soo koobo caawa qulubtayda iyo damirteeda ma garan karo because caruurtii yaraa oo kuwii hore naga halaabeen maanta inay halkan wada joogaan ayagoo ilaa 600 oo dhalinyaro ah oo da'doodu tahay 10 jir ilaa iyo 16 jir marka runtii waa wax lagu farxo waana waxaan leenahay madaalayaasha hore u socda hore u wada aad baan anaguna haddaan nahay shacabkii iyo bahweynta isboortiga anagoo ku hadlaya magaca xiriirka Soomaaliyeed ee mini footballna runtii waan garab taaganahay heel iyo hoona iyo caqlina waa garab taagana marka runtii arrin aad iyo aad u qiimo badan weeye waan idin mahadcelinayaa dhalinyaradiina miidiyaha adiga iyo laacibkayga weynaa iskaraaji aad baan idin salaamaya Cabdikariin bakin oo run ahaantii wax badan ama sidaan arkay ciyaaraha Soomaaliyeed daba socday bakin sida ogtahay Browniga qaasatan aniga wax badan ay arkaysay horseedna u soo ciyaaray wax badan ayuu u taraa ubadka maxaad ku dhiirigelin lahayd waalidiinta in daawanayo ama aad yani dhihi lahayd oo message ahaan aad fariin ugu fari lahayd in caruurtooda ay ku dadaalaan waa runtii su'aashaas aad iyo aad baan Cabdikariin kaaga mahadcelinayaa runtii caawa halkan waxaan u jeednaa hooyooyin aad u badan runtii ma aragno aabayaashii runtii marka waxaan aad u codsanaynaa aabayaasha inay sidii hooyooyinku meeshaan u buuxaan inay yimaadaan si hadhow caruurtii ay kala sheekaystaan banoonigii ay hadhow maray guriga tagaan ay ka wada hadlaan goolkan dhaliyay sidaan u ciyaarayay marka runtii waxaan leeyahay waalidiinta aad baan u tixgelinayaa because la'aantood ma socoteen ciyaarahan marka waalidiinta aad baan ugu mahadcelinaya si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa hooyooyinka laakiin waxaan rabaa ragga aabayaasha anu aan ka mid ahay in ay garoomada yimaadaan ay fiirsadaan ay garoonka camiraan ay caruurta la shaqeeyaan say u arkaan bari ka maalin ciyaalku inay leeyihiin meel ay matali karaan haddana ay matalaan calankii buluuga ahaa oo qaranka Soomaaliyeed ayuu ku ciyaaraya inay matalaan marka runtii waxaan oo loo baahan yahay haddii saan ku abaabaan 10 sano soo socda bari ka maalin waxa laga arki doonaa insha Allah garoomada aad baan kugu mahadcelinayaa kaasi wuxuu ahaa bakin oo gudoomiye ku-xigeenka mini football ciyaarihii weli way noo socdaan oo maanta ayay bilowdeen waxaan filayaa inay muddo dheer socon doonaan waraysi dambena way noo dhiman yahay oo aan ku waraysan doono madaxda kaleeto ama odayaasha kale oo ka soo qayb gala ciyaarahan mar kaleeto waxaan caawa chance ku helay ama fursad ku helay laacibka weyn Xarbi run ahaantii aniga ahaan Cabdikariin Soomaali kumaana arag laakiin Canada ilaahay wuxuu ii qadaray inaan isku soo yara gaarno oo aan Brownie wax yar isla ciyaarno Xarbi waxaan ku leeyahay ku soo dhawaaw shabaqadeeda Bakara Beats ama xornimo website-ka waa maasantahay Cabdikariin sida sharafta la igu soo dhaweysay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh meel kasta adduunka joogtiin Xarbi waa ururka madaxdiisa waa gudoomiyaha ururka
ururkan ka hadlaynana urur kale ma ahan waa ururka Afro Canadian ururkaas oo u istaagay carruurta yararka iyo waxqabadkooda xarbi ururkan aasaaskiisa iyo inta sano aad run ahaantii hadda aad joogtaan ayaan rabaa su'aasha ugu koowaad raba inaan ku weydiiyo walaalkayna diido mar labaad waa mahadsantahay cabdikariin sida sharafta la igu soo celisay ururkan adiga muddo ilaa wuxuu dhisan yahay 8 sano waxaana ku bahoobay kooxaha Hilaac iyo Horseed iyo Samkey iyo before Dixon uu ku jiray kooxda Dixon kadibna hadda ay ku soo biirtay kooxda Muqdisho runtii waa koox loogu talagalay ilmaha in lagu abaalmariyo amba horumar lagu gaarsiiyo sidaas darteed waxaan go'aan ku gaarnay inaan umbrella samaysano umbrellas aan u bixinay Afro Canadian si aan nin kastaba kooxdiisa ugu haysto haddana aan daladaas iskugu imaano si carruurta ay horumar u gaaraan xarbi aniga ahaan cabdikariin magaaladan waan ku soo koray waxqabad badan waan arkay dad badan oo isku dayay waan arkay inay dhahaan ilmaha yarka waxbaan u qabanaynaa hase ahaatee waxaad u malaysaa qaarkood inay shaqo fiican qabtaan qaarna aysan qabanin marka su'aasha labaad oo xigtaan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay waxqabadka ururkan in the past 8 years aad soo dhisneedeen waxa kuugu weyn aad ka gaarteen maxay tahay runtii waxa ugu weyn aan ka gaarnay oo la taaban karo waxay tahay for example sida Hilaac oo kale waa kooxdii ugu horreysay ee meeshaan lagu aasaasay maanta Janiska ay macnaha ay guusha ay soo hoyeen waxay tahay markay ugu yartaa 20 carruur ayaa waxa aaday university jaamacad akhlaaqdooda tarbiibkooda la sameeyay maantana kooxaha maanta ka jiro Toronto ee ay sugaysa amba mustaqbalka amba lagu hanweeyaa oo everybody indiis ku fiirnaa waa kooxda Hilaac oo daadooda ay tahay waxa 20 years ka weyn oo runtii aan aad ugu helnay sida wax ugu qabanayaan koobabka markasta meelaha laga dhigana waxa qaado waa Hilaac Hilaacna waxay ka tirsan tahay waa Afro Canadian guusha weyn aan gaarnay waxay tahay taas ugu weyn run ahaantii sidaan ognahay sportska xarbiyo wax heer qaran yani meel sare ayaad ka gaartay waxaan xasuustaa sawirkaaga oo meelaha ku dhagan adigoo marxuumka Maxamed Siyaad Baralaw naxariistay madaxweynihii hore gacanta salaamayo ama ku guddoonsiinayo koob runtii qeyrad badan iyo ilmo yaryar oo badan way jiraan inay maanta rabaan inay isku dayaan inay horumar gaarsiiyaan kubadda cagta ee Soomaaliyeed marka hal miyay kula tahay way tahay ururkan iyo asaaskan aad samayseen maanta waa maasanta cabdikariin runtaa waxyaabaha aan ku dirim gareynayna amba hurdada naga kiciy waxay tahay maadaama aan back home amba gurigeena hooya aan ka soo ciyaari jirna ciyaartoydana waddankan ugu badan tahay Soomaaliya laacibiinta ugu waaweyn ay degan yihiin North America waxaan mar walba isku dayi jiray amba aan ku dirim gareynay inaan ka qayb qaato sida ciyaalka yararka loo soo saaro runtii wayna hagaagtay waxaana u hamaal celinayaa walaalkay Daahir Xasan Xuseen Marshaale oo heer caalami ama heer qaran asna soo ciyaaray oo kooxda Hilaac hogaaminayo runtii ahna nin aan back home macnaha waqti isla soo qaadan waxaan labadeena ku dirim garinay iyo laacibiinta kale amba coachka kaleba inaan ilmaha wax u qabanno alxamdulillah shukr caalamiin ilaahay waa noo suurtageliyay wax dan amba dhaqaale amba aan future ka fikirina ma jirto dadti just waxay tahay danteena waarimay sidee war ha ka haro barita adduunka waa ka teginaa ilmahan waxa ugu tagno waa war fiican xarbi su'aasha ugu dambayso aan rabo inaan ku weydiiyo aan ummadda Soomaaliyeedna aan rabo inaad u sheegtid waxay tahay waxaad ka filanaysid maadaama qaybtiina ururkiina aad sameeynaysan qaybta labaad inuu gacan ka qaato dadkaad ka sugaysaan waa carruurta maanta aad arkaysaan aad dihiinaysaan waalidkooda marka maxaad ka filanaysaan waalidkooda inay idinku gacan qabtaan ama idinkula garab istaagaan runtii waa su'aal weyn oo loo baahan yahay in laga jawaabo cabdikariin markaan runta kuu sheego haddayna waalid jiri lahayn carruurtaan ma jiri lahayn special haddayna hooyo jiri lahayn carruurtaan meeshaan caawa ma imaan lahayn boqolkiiba boqol meeshaan waxaan uga hambal celinayaa waalidiinta special hooyooyinka waa mahadsantihiin sida sharafta leh aad noo gacan qabateen ilmihiina u gacan qabateen barnaamijkanna adinka la'aantihiin horta lama suurtageli lahayn mar labaad waxaan leeyahay waa mahadsantihiin meel walba wax lagu qabanayo ama meel walba aan samaynayno haddaan ayaga la socodsiin waxa aan qaban karna aniga ma laha fikraddii ayaan keennay laakiin wixii kale waajibaadka waxaa ka soo baxay waa dumarka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa mahadsantihiin
meel walba aan joogna aan nala joogtiin oo ku mahadsantihiin haddii ilmihiinna aad dhasheen oo anigana aan coach garayna aan saas wax noola wadin ilaahay idinkiisa waxaan ka rajaynaynaa inay mustaqbal fiican ay gaaraan waad ku mahadsan tahay xarbi legend oo actually ahaa ciyaartooydii hore ee Soomaaliya oo si fiican dhammaantiin aad u garanaysiin haddana ah guddoomiyaha ururka loo yaqaano Afro Canadian waa tahay maadaama hadda aan soo gabagabeynayna aan soo xireyno barnaamijkeena xarbi waxaan rabaa inaan ku siiyo fursad qaali ah waxaan rabaa inaan ogaado dadka ama abaabulka kula soo sameeyay ama ku garab taagan yaa ka mid ah ururkaaga fadlan waa mahadsan tahay runtii waxaan meeshaan ugu hambal celinayaa guddigii oo loogu talagalay tournamentigan oo ugu weyn yahay oo abaabulay macallin muuse ilaahay khayr ha siiyo guddiguu soo dhisana caawa meeshaan way fadhiyaan oo ka mid yahay cabdi dibitaati iyo bashiir ibey walow uu ka maqan yahay islaawga bashiir iyo ninkii la dhahay xaashi yuusuf dheere mustafa iyo gruub kaloo badan ayaa meesha ka maqan waxaan leeyahay dhammaantiin abaalkii aad u gasheen ilmahan ama meesha aad soo fadhiisateen jasaakumullahu khayr annaga u taagan ayaa haddana waxaad tihiin dadka garabkeena taagan waxaan kaloo meeshaan ugu hambal celinayaa afarta kooxood koojashkooda iyo maamulkooda haddaan ku hormaro hilaac waxaan u mahad celinayaa cumar jangoan jamaal daahir xasan xuseen iyo daahir boodaaye oo aan leeyahay sharafti iyo macnaha qadarinta aad ilmaha gaarsiiseen waa ku mahadsantihiin samkii waan leeyahay anwar ciise iyo laacibka weyn cumarey barpe iyo xasan aan leeyahay waa ku mahadsantihiin sida sharafta aad samkii ugu kacdeen sidoo kale horseed waxaan ka ammaanayaa waa aadan salaad iyo maxamuud axmed dhoore faadumo iyo iimaanka koojka ah iyo cabdixakiin xersi allahu mustacaan oofey khasaaye dhammaantood waxaan leeyahay sida sharafta ah wax noogu qabateen aad iyo aad ugu mahadsantihiin cumar ninka la leeyahay cabdikariin iyo saaxiibka iskalaajina sida sharafta ah meeshaan noogu timaadeen caawa waa ku mahadsantihiin garabkaana siiseen waa ku mahadsantihiin mar walbana waxaan igu gubaabinayaa inaad na garab taagnaatiin si ilmaha ay mustaqbalka wax fiican u helaan iyo meediya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan haddana ku soo dhaweynayaa mar kaleeto ama aan rabaa su'aalo yar inaan ka weydiiyo cabdi dubataati oo taagan midigteeda iyo bashiir aad taqaaniin refriga khatarta reer toronto walaalkee labadan nin waxay ka mid yihiin guddiga ka sii sareeyo Afro Canadian guddigaas oo loogu talagalay inuu u ahaado mid dhexdhexaadiya guddiga oo yacni ciyaartooyda tababara marka su'aasha ugu horeyso aan ku soo yaro dhaweeyo walaalkee cabdi dibitaato cabdi waxaan rabaa inaad inoo yaro taabatid groupkan sida uu u taagan yahay iyo waxa uu u taagan yahay yacni Afro Canadian groupka ka sareeyo waa mahadsantaa walaalkay su-aasha ay weydiisay haddaan kaaga jawaabo su-aasha waxa weeye maadaama naadigan afro ay afar kooxood yihiin waxay u baahdeen guddi ka sarreeya oo runtii dhibaatooyinkoodana la xalliya ama waxa loo yaqaano af ingiriiska boordka sare guddigaas waa ilaa 7 qof maanta aniga iyo bashiir baa kala jooga waana ku faraxsannahay nimankan hawl aad u qurux badan bay qabtaan ayaga iyo waalidkaba waa isla shaqeeyaan annagana waa ku faraxsannahay in aan barnaamijkan qutada dheer oo soconaya ilaa iyo bisha April 2017ka aan wax ka wadno oo aan daadihino oo aan dhammayno insha allahu tacaala su-aasha xigta aan u soo jeesto walaalkay bashiir run ahaantii waa nin cadaaladda ka shaqeeya sababta tahayna waa nin sidaa ku taqaaniinba arbitra markiis hore bashiir waxaan rabaa inaan kaa wareysto ururkan oo aad u jeedid Afro Canadian waxtarka ay sameynayaan miyay kula tahay waa mid horay u soconaya oo loo baahan yahay ay ummadeena Soomaaliyeed oo reer Toronto ay u baahan tahay inuu yahay بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على أشرف الأنبياء والمرسلين marka hore waxaan mahadle ilaahay baa mahadle anagoo nabad qabno sukan keenay brother cabdikariin aad u mahadsan tahay waxaan hambali iyo bogaadin u soo jeedinayaa iyagana guddigii qabanqaabiyey tartankan Afro Canadian
iyo coachajka dhammaan waalidkii ka soo qayb galay ciyaartooyda iyo miidiyaha baraka beats oo mar walba garab taagan soo tabinta iyo ka warqabka ciyaaraha iyo dhacdooyinka community-ga su-aasha ay weydiisay waa su-aal aad u wanaagsan alxamdulilah ilaahay wuu nagu garab galay miitinno badan kulamo badan kadib waana arrin loo baahan yahay in la qabto oo ah basic dhismihii ciyaalka futurekooda alxamdulilah waxaa waaye waqti badan oo sacrifice la geliyey dadkii guddiga ahaa koojajkii waalidkii ciyaartooydii saa aragteen waxaa waaye wax fiicana ka soo baxaya hadduu ilaahay raalli ka noqdo in laysu samro oo lays aamino oo garbaha lays qabsado sacrifice la sameeyo ilaahayna tawfiiqda hana waafajiyo kulligeen marka it's a very bright future waxaa waaye aad uu uga duwan yahay tartamadii hore oo la qaban jiray wuxuu leeyahay guddi farsamo wuxuu leeyahay guddi qabanqaabo wuxuu leeyahay guddi garsoorayaal wuxuu leeyahay wada tashi badan marka kulligeen waa wada tashanaynaa adinkana waxaa waa ilaahay khayr idin ka siiyo miisaankiina xasanaadka idiin saaro saa usoo tabinaysaan oo mataqaanaa community-ga u gaarsiinaysaan khayraadka iyo wax wanaagsan oo lasoo wado siduu nabiga noo sheegay sala allahu calayhi wasalam waxaa waaye almuslimu qawiyu muslimu daciif marka waxaan meeshan ka soo dhisaynaa ubad yaryar oo xoog badan oo mataqaanaa quwaddooda iyo soomaalinimadooda iyo muslimnimadoodaba ay aad u weyn tahay marka ilaahay aan ugu garab galo kulligeenba wabillaahi towfiiq weli waxaan guda jirnaa barnaamijkeeni oo Afro Canadian mar labaad aan su'aasha u soo celiyo Cabdi Diiri Cabdi waxaan doonayaa waxay tahay mar labaad inaan ku weydiiyo sidaan ognahay waxa tahay laacib ciyaara kubadda kolayga ma aha banooniga soccer-ka bal hase ahaatee waxaad maanta joogtaa garoon lagu ciyaarayo banooniga loo yaqaan kaalshada ama soccer-ka kubadda cagta marka taasi waxay ku cadeynaysaa inuusan isbedel uusan ka jirin wixii maray tahay sports miyay kula tahay muhiimaddu waa sidaas u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed inay isku la shaqeeyaan mase waxay u baahan tahay qolo walbaba meesha faraheedu kula jirto in loo sidaayo waa su'aal wanaagsan Cabdi runtii aniga waa runtaa oo basket waa ahay hadda naftirkeedana soccer-ka kama marni oo kubadda cagta waa dheelaa horeyna waa u dheeli jiray waayo professionka labada koox laba ciyaartooy oo khatar laba ciyaarood oo iskuma ciyaari kartid runtii aniga waa taageeraa kubadda cagta kubadda koleygana sidoo kale aniga macallin baaban ahayba oo niman carruur yar hadda ilaa labadii sano ugu dambeeyay carruur ma hayn carruurtii waxaan ku wareejiyey Bruno iyo Axmeday sportsmanship ya marka sportsmanship waxaan jeclahay marka in markasta aan taageero waliba dhalinyarada yar carruurta yar in dib laga soo dhiso oo aad iyo aad loo soo kobciyo waa jeclahay oo mustaqbal laga soo saaro marka su'aasha ay weydiisay aad baan uga mahadsan waan idinka mahad celinayaa barnaamijkaas iyo sida quruxda badan oo uga soo qayb gasheen iyo tabintiina aad soo tabiseen aad iyo aad baan u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan ku soo xiray su'aasha ugu dambayso aan weydiin doono walaalkay Bashiir Bashiir maadaama tahay runtii nin magaaladan degnaa wax badan lagana yaqaano garsoorana aad tahay su'aashan ku weydiin rabaa waxay tahay waalidka wax badan ayay ka qaadataa carruurta waxaan u malaynayaa horeyna u maqlay waalidiinta badanaa waxaa loo mahadnaqayaa hooyooyinka maxaad ku guwaabin lahayd aabbayaasha ka maqan meesha ما شاء الله سؤال أو أن فيلين إن إيمان دونتو waxaan ku faraxsanahay waxa waaye waa su'aal loo baahnaa in la isweydiiyo marka kolley waxaan dhihi lahaa waalidiinta bal dadaalkiina sii wada gaar ahaan hooyooyinka tan kale waana muhiim aabbuhu figure father in mar walba meesha laga helo haddii ay noqon lahayd maahan kubadda iyo sportska kaliya waxaa waaye every level of mataqaanaa oo ciyaalkeenna ay involved ku yihiin hadday noqon lahayd iskuulladii haddii ay noqon lahayd dugsiyadii hadday noqon lahayd any kind of waxbarasho waa inaan more involved ku noqono
marka waa su'aal wanaagsan marka waxaan leeyahay kolley caawa odayaasha waa laga badnaa meesha joogay marka waa hooyooyinka waxaan hambaliye iyo bogaadin aan u soo gudbinayaa ilaahayna miisaankooda xasanaadka ha u saaro dadaalkaas ay wadaan odayaashana waxaa waaye bal waxaan dhihi lahaa boorka ha la iska jafo ha laga muuqdo hadda iyo wixii ka dambeeyo waxaana la joogay dhowr qof oo ajnabi ah ilaa iyo haddana way la joogaan ilmahooda marka sidaas oo kale inaan maaragtay aan mas-uuliyaddaas isu saarno oo aan ciyaalkeenna saaxiib la noqono aan la ciyaarno aan mataqaanaa sportskooda ka warqabno taasna waxaa waaye waa mas-uuliyad uu ilaahayna saaray tan kale it's part of proper parenting waxaa waaye waalidiinta iyo sida saxda ah waalidnimada marka bal ilmaha waxaa saaxiib lagula noqon karaa keliya sports involvementiga iyo after curriculum educationka programmeska ay galaan marka kuwaas haddaan more involved ku noqotaan waxaa waaye the kids will see you haddii kale waxay ku dhahayaan he was not there when I wanted him so please odayaasha waxaan ku goobaabin lahaa inay mataqaanaa more involved noqdaan jazaaka allahu khayra haatan aan kusoo gabagabeeyo walaalkay xarbi oo raba inuu yacni ciyaartooy Soomaaliyeed oo walaalaheena ah oo dhibaataysan ama haatan jiran inuu yacni halkan uga duceeyo waa mahadsantahay cabdikariim mar labaadaan kusoo noqday waxaan meeshan rabaa inaan caawo aan fursaddan ugu faa'iidaysto oo jaaniskan weyn waxaa meeshan ku xanuunsan magaaladan walaalkii weyn Cumar Ganjab ilaahay caafimaad ha siiyo cabdiraxmaan tabcaan ilaahay asigna sidoo kale caafimaad ha siiyo axmed camaas busuri asigna sidoo kale waa u soo ducaynayaa walaalkay diiri oo hadda asigna isbitaal ku jiro asigna waxaan leeyahay caafimaad taam ilaahay ha siiyo dhammaan inta xanuunsan waxaan ciyaartooy ay joogta adduunka waxaan uga jeedinaa ilaa caafimaad siiyo iyo dhammaan muslimiinta adduunka ku nool waana mahadsantihiin sida sharafta la caawa loo daadiyey again bashiir cabdi waxaan u malaynayaa sidii waxaa noogu qabateen ilaahay abaalkiisa nigu weydiye jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haatana barnaamijka ayaana joognaa intii kunala dambe insha allahu tacaala waa walaalkay cameraman iskalaaji saaxiibkay ciyaartooy qaali ah iyo anigoo cabdikariin ah waxaa inaga maqan miidiyaheena inta kaleta gruubkeena insha allahu tacaala marka waa inoo kulan dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isbahaysi beel iyo boog hore ciyaaraha dadka kaga bogsoodayo bulshadii mid weeyaan isbahaysi beel iyo boog hore ciyaaraha dadka kaga bogsoodayo bulshadii mid weeyaan bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya khayradii dumar bilaabow sara kaca sacab 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 badan haloo tumo sacab 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 badan haloo tumo bilicbay inooyin sumadii badhaadhaha barqadiyo nagaadiga weye haloo gugo bilicbay inooyin sumadii badhaadhaha barqadiyo nagaadiga weye haloo gugo
garoon buqcadii ciyaaraha barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayragiyo dumar bilaabo sare kaca sacab 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 badan ha loo tumo sacab 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 badan ha loo tumo garoon buqcadii ciyaaraha barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayragiyo dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab